Kusoo dhawaaw YouTube kanaalka Mano Production. Waxaan muuqaalkan kuugu sheegayaa afar website oo ay tahay inuu ogaado arday kasta oo Soomaali ah oo wax badan kaga faa'iideysan kara waqtigiisa waxbarashada iyo waqtigiisa firaaqadaba. Intaan bilaabin ka hor haddii aad ku cusub tahay kanaalkan, fadlan subscribe leh. Isku day inaad gaarsiiso linkiga kanaalka hal qof. waxaa jira website-yo iyo application ka caawinaya dhinaca waxbarashada, haddana mid kastaba uu leeyahay ujeedo u gaar ah. Halkan waxaan kugu sheegayaa afar website oo ay tahay inuu ka caawinayo inaad noqoto qof wax soo saar leh iyo inaad waxbarashadaada ka gaarto meel heer sare ah. Sleepy Time waa website xisaabiyo waqtiyada hurdada la tago iyo waqtiyada hurdada aad ka kicisid. mid ka mid ah talaabooyinka ugu fiican ee loo baahan yahay markaan hurdada kasoo kacno inaan helno firfircooni iyo raaxo halkii dib aad ku qabtid xilliga ugu fiican ee la seexdo. Sleepy Time wuxuu ku xisaabinayaa xilliga ugu fiican ee aad hurdada tagayso iyo xilliga ugu fiican ku habboon inaad soo kacdo. xilliga aad kasoo kacdo hurdada waxa uu ku siinayaa afar waqti oo tahay inaad seexato, ugu fiican tahay waqtigaas inaad soo kacdo xilligaas aad rabtid dhammaantii. Laakiin waqtigu ma ahan mid oo ku habboon, laakiin waa mid iska qiyaasa. oo sidoo kale haddii aad hadda tagayso waqtiga hadda la taagan yahay ama waqtiga website booqatid, waxa uu ku qiyaasayaa 6 waqti ee ugu fiican inaad kasoo kacdo hurdada ayuu ku sheegayaa. waxaad taabanaysaa kaliya calaamada Z ee meesha ku qoran. Khan Academy waa website aan faa'iido doonayn. haddii aan si kale u dhigo, waa website aan shaqo ku lahayn dowlad, oo waa website free ah. waxaa aasaasay sanadii 2008 waxaana aasaasay nin Amerikaan ah magaciisa la yaqaano Salman Khan. hadafkiisu ahayd inuu abuuro website ama qalab internet oo waxbaraya ardayda cashiro iyo koorso, iyo weliba websitekaas ka faa'iideysan kara dhan kasta ahaatee luqadaha Ingiriiska iyo sidoo kale waxaa lagu helaa luqado kala duwan oo ay ku jiraan luqada Spanish, Portuguese, Ciraaq, Talyaani, Ruush, Shiineys, Turki, Faransiis, Bengali, Hindi iyo Jarmal. sidoo kale websitekan waxaad ku faa'iideysan kartaa haddii aad taqaano luqada Ingiriiska dhanka waxbarashada, oo haddii aad tahay arday ama haddii aad tahay macallin iyo haddii aad tahay waalid. websiteka waxaad ka helaysaa online courses iyo online class. websiteka waxa uu bixiyaa koorsooyinka uu bixiyo waxaa ka mid ah xisaabaadka, sayniska, injineeriga, kombiyuutarka, farshaxanka iyo aadamiga, dhaqaalaha iyo maaliyadda, iyo kuwo kale oo aad ku qaadanayso shahaado free ah. haddii aad rabtid websitekan waxaad ka helaysaa description-ka video hoostiisa linkiisa. edX waa website online courses ah oo waxaa ku jira koorsooyin heer jaamacadeed oo kala duwan. jaamacadaha ugu sareeya adduunka ayuu xiriir la leeyahay, oo ay ka mid yihiin koorsooyinka qaar oo bilaash ah. waxay kaloo cilmi baaris ku sameysaa websitekan iyadoo la eegayo sida dadka ay usoo booqdaan u isticmaalaan meerkooda. edX waa website aan faa'iido doonayn oo xiriir la leh jaamacadaha heerkooda sareeya sida macadka tiknoolajiyada ee jaamacadda Xirfad. ururo aan faa'iido doonayn iyo shirkado ayaa bixiya ama qorsheynaya inay bixiyaan koorsooyin bogga internetka ee edX inay kusoo faafiyaan ama inay soo dhigaan. koorsooyinka edX waxay ka kooban yihiin cashiro isku xigxiga. qayb kasta oo cashir kasta waxay ka kooban tahay fiidiyoyo gaaban oo lagu barbardhigayo leeliyo iskuulaha, oo si ardaygu si dhaqsi ah ula dhaqmi karo fikradaha lagu soo qaato fiidiyowga. waxaa ka mid ah koorsooyinka uu bixiyo oo ugu horeeya culuumta kombiyuutarka, barashada luqadaha, culuumta macluumaadka, ganacsiga iyo maamulka, injineeriga iyo koorso la xiriira aadamiga. kaliya waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso websitekan edX haddii aad u baahan tahay inaad kaga faa'iideysatid cashirada iyo koorsooyinkaba. Wikipedia waa website bilaash ah ama website aan faa'iido doonayn oo furan internetka,
oo la abuuray in lagu keydiyo macluumaad iyadoo loo marayo dadaalka iskaashiga bulshada ee loo yaqaan Wikipedians. Qof kasta oo ka diiwaangashan website-kan Wikipedia wuxuu abuuri karaa inuu daabaco maqaal. Isdiiwaangelinta looma baahna inaad daabacdo maqaalo. Magaca website-ka loo yaqaano wiki waxa uu ka yimid oo macnaheedu uu yahay barnaamijka adeega oo uu suurtagelinayo qof kasta inuu habeeyo bogga internetka iyadoo loo marayo browser-ka ama maqaalooyinka wax lagu raadiyo. Jimmy Wales iyo Larry Sanger ayaa asaasay shirkaddan loo yaqaan Wikipedia. Waxay u asaaseen in ay fikradooda inay sameeyaan mashruuc farsamo oo lagu magacaabo Nupedia. Bishii Janaayo 2001 ayay asaaseen barnaamijkaas ama mashruucaas oo loo yaqaan Nupedia. Asal ahaan Wikipedia waxaa loo abuuray si loo bixiyo Nupedia oo ahaa mashruuc farsamo si loo soo kordhiyo bog ama website macluumaadyo lagu keydin karo oo qof kastaba uu soo booqan karo. Laga soo bilaabo Janaayo 2015 shabakaddu waxay bixisay in ka badan 5 milyan oo maqaalo Ingiriis ah. Mideeda kale Wikipedia waxaa loo isticmaalaa in lagu baaro xogaha oo baaritaan lagu sameeyo oo ku saleysan dhan walba ha ahaato. waxaan filayaa muuqaalka inuu ka caawiyay meel badan. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkan fadlan subscribe u share garee asxaabtaada xitaa isku day inaad gaarsiiso hal qof